بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود الكسور وهذا برنامج كسابسن حالة دلك ليبيا سيسي وأمر سيي عندما مصر حل أي حيسات كلا دحيسة تركيا مدحوينها دلك مصر عبد الفتاح عزيز أي سبتيغو كأمر عيدن كيسين وديار جروبان هولقال دلك جوديه ساء مدبدي ساء سي يدفعان دنيه ساء من حل أي سيكور رئيسو حيسات كلا دحيسة تركيا أو تاجرسن دولة عالم كأقونسية هي ليبيا turkiga waxa uu taageersan yahay dawladda caalamku aqoonsan yahay ee degan Tripoli waxayna taageerada turkigu dib ugu celisay weerar 14 bilood uu magaalada caasimadda ah ku hayay General Khalifa Haftar oo doonayay inuu qabsado magaalada ciidamada Khalifa Haftar waxa taageera Ruushka Imaaraadka Carabta iyo Masar Azizi waxa uu sabtigi u safray saldhig ciidanka cirku ay ku leeyihiin meel 1200 oo kiiloomitir u jirta xuduudda galbeed ee ay wadanka Masar iyo Liibiya wadaagaan halkaas oo TV-ga dawladdu uu muujiyay madaxweynaha oo daawanaya diyaarado dagaal oo duulaya isku diyaariya inaad qaadaan howlgal halkan xuduudeena ah ama haddii ay lagama maarmaan noqoto xuduudeena banaankeeda ayuu u sheegay duuliyaal ka tirsan ciidanka cirka iyo askar ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Masar ciidanka Masar waxa ay ka mid ahaayeen ciidanka ugu xoogga badan gobolka waa ciidan macquul ah ciidan wax ilaaliya ee aan wax u hanjabin tan waa xeeladeena waxa aan rumaysanahay iyo mabda'eena oo aan marnaba bedeli doonin ayuu yiri Sisi horaantii bishan Masar waxa ay ku baaqday in xabad joojin laga sameeyo Liibiya taasi oo qayb ka ah in hindise la soo jeediyay in lagu doorto hogaamiye dalka Mareykanka Ruushka iyo Imaaraadka Carabta ayaa soo dhaweeyay qorshaha jarmalka waxa uu sheegay in wada hadallada ay garwadeenka ka tahay qaramada midooba uu muhiim u yahay hanaanka nabadda si kasta turkiga ayaa diiday soo jeedinta waxa uu ku tilmaamay isku day la doonayay in lagu badbaadiyo Haftar oo khasaare uu ka soo gaaray goobta dagaalka